يا حبيبتي. حبيبي. يا مالتا سيادة مانت. والله ما أنت أدبا مصوصة عدوان ليه هذا شقة بلا سجورك سموك قبا. ميلر هذا أملينا. أدبا مصوصة ما شاء الله. والله يقدر تمام. يا هذا هو بهاي لكن سبورتي صعدك هواي عرفت وحيدا عن تغدوا وتمدوا وتعشوا وتمشوا. يا أوكي. وفي عندها عفمات. أحبها واحد. أنا كمان حبيبي. إلهي كذا. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام هيا. سو فعلا. الحمد لله كل في عمره. عليكنا. الحمد لله ويا في عنا هاي. كور تشيم كاجي. في عمره. ولسه الله قلنا هذا كله. ما تكيلوي بدنا قادمية. ما شاء الله. قلوب هيا قلوب هيا هوي. السلام عليكم هوي أبا. وعليكم السلام إيمان. هوي ما ينقطع سكولكي ما كدعي. هوي محاكو دعي في السكة هي محاكا دعي. هل جوير حجاب كيس كتورتي ما هي دهتي أنا مسلمي هي. هويو أنيجنا وحا أركي ويل سومالي أنا قانو ويل عدان معوسية ويابوي. والله وياب هويو أرنتن هي أرمان أشيء سين والله هو عجيب صار أنفرست. وياب. أي حبيبتي. حاجة ده لا أرنتان. hooyo waxaan la hadlayaa iimaanay waxaan rabaa inaan kuu sheego maadaama aad igu tiri gabar oo iskuulka ila dhigata ayaa maalin dhaweyd waxaweye xijaabkay tuuratay waxayna tiri iyadoo xanaaqsan saan kulli kaa fahmayey iyadoo xanaaqsan ayaa waxay tiri ani muslimi ihi hadda wixii ka dambeeya marka hooyo waxaad ogaataa horta inaga dad muslimiinaan nahay waxaan ku dhex nool nahay wadamo oo ma aragtay gaalo ah wax walbana adduunka waa lagu arkaa iyadana gabar oo Soomaaliyeed weeyaan hooyadii aabaa dhalay saa adiga aan kuu dhalnay waxaa laga yaabaa in culays ay ka dareemayso oo dhinaca familka ma naqaano laakiin waa u duceynaynaa ilaahay ha soo hanuuniyo laakiin mid baan kuu sheegayaa hooyo taas aan rabo inaan kaa waaniyo waxaad ogaataan xasan iyo iimaan in horta annaga oo dhan aan doon wada saarannahay doontaas oo meel cidlo hahaabayso hooyo markaa doonta waxa ka badbaadayo waxa weeye qofkii yaqaano dabaal qofkii aan aqoonin dabaalna hooyo wuu ku harqayaa yacni badda liqayso marka waxaan ka wadaa noloshan iyadaaba adag oo nolol adag weeyaan haddii si loo eego oo wadamadan aan usoo haajirin waayo kala dhaqanaan nahay kala diinaan nahay kala maxaa la yidhaahdaa fikrado kala duwanaan haysanaa marka waxa wanaagsan in diintiina aad ku deganaatiin in xijaabkiina aad ku deganaatid in gabar yaroo soo wareerto waxaa laga yaabaa culeys oo xooga inay familka saareen inaadan ma aragtay aadan eegin waayo mujtamaca waxa weeye ilmaha way kula korinayaan waa fahaad soo maahan laakiin waxa ka bixi karo hooyo qof aqli beeran aqligaaga waa inaad la kaashita hadday for example waxaad aragtay gabar oo tiri iskuulka iyadoo xanaaqsan aroorti markay soo gashay xijaabkii tuuratay yacni waxa weeye taa waxa keenayso waxa laga yaabaa familka ku cadaadiyey waa fahaad soo maahan anigana waalidiinta inta badan waxaan kula talinayaa waalid kasta يعني ilmaha abaabintooda waxa weeye ilaa intay yar yihiin in si fiican loo abaabiyo loo sheego in ma aragtay xijaabka uu yahay wax oo ma aragtay kitaabka lagu soo dejiyey oo gabadha muslimadda ah loogu talagalay oo in ay tahay bako ay tahay qasab ma fahantay laakiin qofka markuu 15 uu dhaafo يعني isaga uu choice ka leeyahay يعني waxa ka wada choice ka يعني u sheeg laakiin
oo ma aragtay yani inay waajib ay ku tahay xijaabka inay qaadato laakiin ilmihii markuu soo caqliyaysto weli special caruurta wadamadan lagu dhalayo ma fiicno lagu qasbo marka laakiin waano ilmaha mar walba inaad ku calcalisid aad tiraahdid gasho adigaas aad u jeedid hooyo qofku ku qasbay ma lahayn anigu ma oran xijaabo adaa jeclaatay adaa tiri hooyo xijaabaan rabaa inaa xirto gabadha walaashaada saas si la eg amiira iyadaa tiri xijaab inaa xirtaan rabaa marka xijaabka hooyo iyo diinta muslimka waxa weeye wada loo wada dambeynayo waxaan dhan aad u jeeda waa khayaali laakiin muslimka waa diinta xaqa ah marka ilaahay ha naga badbaadiyo masaa'iibta iyo dhibaatooyinka adduunka ka socda laakiin qof walba waxaad ogaataan waxaan nahay doon ayaan wada saarannahay doontaas waxaa ka badbaadi karo qofka dabaasha yaqaano marka nolosha oo dhanna waa saas waxaa ka badbaadi karo qof caqli iyo diintiisa ku dhegan caqlina ilaahay siiyo wax walba kala miiri karo way fahamtay soomaa hadda xasan oo kale wuxuu yiri waxaan arkay wiil aan aqaanay saan ka fahmay wiil aan aqaanay oo nin wiil cadaana ku dhegdhegayo hooyo waxaa laga yaabaa in jecel la tusin waa fahamtay soo maahan in waalidkiisa jecel ay tusin waxaa jiro waalidiin fara badan ilmaha la sheekaysan marka dhibaatada jirto mar walba soomaalida aan ka waaninayo ilmihiina la fadhiista ilmihiina la sheekaysta ilmihiina ha kuu waramaan hadalka ha ku calinin ha oran waxa weeye adi waad ku qaldan tahay waa hadda iimaan iyo xasan oo arrimahaas iila yimid oo afka aan goostay marka ma soconayso ilmaha waxa weeye si tartiiba inta lala fadhiisto fikradahoogaa la dhegaystaa hadalkoogaa la dhegaystaa si tartiiba ayaa wax loogu sheegaa ilaahayna waa loo baryaa ilmaha waay waalidaan nahay habaarna ma fiicin ilmahaaga hadduu kaa soo horjeesto inaad habaartid waa inaad ka dhegaysatid kadibna aad u ducaysid ilmahaaga ma fahantay waad tiraahdid ilaahay intaad gacmaha kor u taagatid ilaahay ilmahayga gaalada igaga badbaadi wadamo waxaan joognaa oo iska dhib badane iyagiina waxayna ogeen talabaadna ibraahim iyo xasan iyo iimaan soomaalida waxayna ogeen in mujtamaca uu la korinayo ilmaha oo maanta annaga ma aragto maanta waxaan samayn karna kaa waalid ahaan oo aan ahayn inaan u duceyno ilmaheena iyo inaan waanisano ma ahane inaanan xoog ku lahayn ma fahantay xoog kuma leeyahay ani xoog kuma leeyahay xasan waa ninkaa weyn oo 22 jirka iimaan waa gabar 12 jir ah maanta iyaga waxay jecel yihiin way samayn karaan waayo waxaa la joogaa wayna og yihiin waxaa la joogaa wadan oo xor ah oo qof la hadli karo walaa waalidka kula hadli kareen laakiin waa maxay connection fiican aan naga dhexeeyo ilmahaaga waa inaad connection fiican aad la yeelatid waxay kuu sheegayaanna aad ka dhegaysatid aad sisid jaanis ay kugu sheegaan ma ahan inaad afka goosatid ma ahan inaad tiraahda ani waalid baan ahay ma ahan inaad tiraahdi dictator narcissisnimo meesha inaad la soo fadhiisatid may waad ku qaldan tahay xasano ana maxaad iigu sheeginin oo nin kale ku dhegdhegayo waa idib daran tahay adaa waxaa xiiseynaysid dadaa jiro oo hadalka dhan waalidaa jiro hadalka dhan ku qalloocinayo ilmihii ha way jiraan laakiin ilmaha ma rabtaa inuu ilmahaaga kuu soo dhawaado ma rabtaa ilmahaaga inuu connection fiican kula sameeyo ilmahaaga dhagayso waqti sii ha hadlo su-aalahana suu raba ha kuu weydiiyo marka uga jawaab marka hooy aad baad u mahadsantihiin xasanoo ilaahay wiilkaas isnaha soo hanuuniyo hadda waxaan joognaa wadan oo dhibkiisa iska badan yahay oo gaalo ah inamadii ku wada hallaabay waan u wada jeedaa taasna waxay kasoo aasaasmaysaa hooyo waa guryaha ilmahan jeceyl kama helaan soomaalida يعني كما هلان سو دوين والدك waxaa laga yaabaa isagaaba isku buuqsan problem familia jiro laakiin alxamdulillah wax weeye idinka wax weeye hooyo iyo aabo mar walba waa inaga maqan waxaad inoo sheegtiin wax walba qalad ha ahaado sax ha ahaado ana caruurteeda kuma caliyo mana yani hadalka yani waa ka dhageystaa marka waalidiinta Soomaaliyeed waxaan aniga ku waaninayaa ilmihiina dhageysta
ilmihiina soo dhaweeya ilmihiina waaniya ilmihiina wuxuu xaq u leeyahay xaqiisa ha dhacsado xataa hadduu ma aragtay waalidnimo adiga uu ku arkayn oo ilmaha isku mid ma noqon karaan ibraahim mid walba noocu ilaahay u sameeyey marka qasab ma aha 6 baan dhalay 7 baan dhalay 7daba aniha ay adeecaan midaa qalafsanaan karo midaa ma aragtay noqon karo baari midaa ma aragtay dhaga adeeg kuula imaan karo laakiin qalbigiisa nadiif ah dabeecadahoogaa kala duwanaanayo marka laakiin waalidka waa inay accept gareeyaan waa inay yidhaahdaan okay ani ilmahaygaa tahay oo iyaga يعني سيستم ولا أخبار المهم يكسر شيطان مركا المهاجة إلهي حق بوكا صاري وإنا سوتش دتت المها مركا أنا كل أنت صار هو يأدب أمهات سنتين قبل صاحب قبل سكول كل بيجتنا أو حجاب إسكتوطين إلهي هسوها نونيو ويل كان ما عرفت واي والد الله يساعدك إني دلنا أو كدم قنايو adigan wiilkan aad aragtay oo aad taqaanayna ilaahay ha soo hanuuniyo kulley dhibaato weyn taalo qurbaha idinkana is ilaaliya hooyo wixii xunnana ma aragtay saasa uga falaqayna waxaad aragtiin waalidkiina u soo sheega ibraahim adiga maxaad ka oran lahayd arrintan aniga kaliya macnaa wixii aan dhahay laadaan dhahay laakiin waxaan ku darsanayaa hal shay oo ah macnaa anaga kolleyba jidka fiican waa idin tusnay معناها واندين هراء وقبتين معناها تحذركين بدي وحان جوجنا ودن وقالا إن وحان جوجنا زمن وحان قلنا الله عجيبة وآخر زمان كله مركا تحذركين بدي تاسع درس الله مركا أنا إنه يدين دعيني مركا سؤالها سو كلام سو بدي حاجونك أكو أركتان وحياب له هسك بدنا جونك waxyaalo badan yaab leh arkaysiin nolosha hortiina jirtaa marka taxadirka badiya waa idin salaamay asxaabta meel walba adduunka aad ka joogtaan waa walaashiina mulki maanta clipkan waxaan u duubay waxa weeye waxa ku yara jira in yaroo xikmad ah waxaan uga dan leeyahay waalidka oo ku nool qurbaha dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ilmahooga ay isku fahmi la'yihiin waxa weeye waxaan nahay waa waalid xaq baan kugu leeyahay igama daba hadli kartid adi xuquuq ma lihid haddaad tahay ilmahayga ani hadalkayga uunbaa soconayo markaa dhibaatooyin badan ayay noo keentay arrintaas soomaalidana waalidka soomaaliyeedna kuma buraarugsano marka aan waxaan waalidka aan kula talinayaa ilmahaaga connection fiican la samee ilmahaaga soo jiido ilmahaaga soo dhaweyso ilmahaaga si waqti uu ku hadlo ilmahaaga dhageyso adigaas daawanis oo waalid ah hadhow ha ooynin waxaa leeyahay qof walba wuxuu fasho ayuu helaa marka beerta marka qofku uu beerto si fiican ugu soo baxdo miraheedu cunayaa marka qof walbana wuxuu isaga beertay ayuu gadaal ka helayaa taasna waxaan ka wadaa waa talo ku socoto waalidka please and please ilmahan oo ku dhalanayo wadamadan oo hormaray wax walba way fahansan yihiin wax walbana way og yihiin mujtamacana kula korinayo marka please and please soomaaliyay ilmihiina soo dhaweysta ilmihiina la sheekaysta ilmihiina jeceyl tusa ilmaha markuu banaanka kaa ordayo jeceyl iyo deganaasho kuma haysto gurigiisa ilmahaaga hoos u eg qalbigiisa iyo dhaawaca ku yaala ka daaweyn hooyo kasta iyo aabo kastana ilmihiisa ma daaweyn karo ilaa isaga isu soo daaweyn waayo inaka mujtamaceena waa mujtamac ku burburay dagaal marka wixii aan ka dhaxalnay dagaalkii iyo probleemadiina saameeyey annaga ka waalid ahaan ayaa ilmaheeni u gudbayo marka hadal waxaan kusoo gunaanudayaa yani ilmahaaga saaxiib la noqo soo dhawee hadalkiisa maqal waqti si uu ku hadlo hadalka ha ku cayin
sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.